السلام عليكم وبركاته لكم السوماليلا قبل السودان marka labaad anigoo ku hadlaya afka Soolshaan inkastoo gudoomiyihii uu fadhiyo xubnaha ururka aan ka mid ahay gudoomiyuhuna iga dambayn doono waxaan ku istaagayaa wasaaradda warfaafinta iyo doorka ay ku leedahay warbaahinta madaxa bannaan tan iyo maalintii Soomaalida lala soo noqday xaalado kala duwan iyo marxalado kala duwan iyo duruufo kala duwan ay soo martay duruufahaasi dad baa kala soo dabaashay midba meel uu soo gaarsiiyey marbaa jiray dalku inuu lahaa hal wargeyso keliya marbaa wargeys labaad ku biiray marbaa hal tiifi ka shaqaynayey marbaa warbaahintuba ay tirsaneyd oo aanay ka badnayn 5 qof 6 qof oo wada qaado la isu tilmaamo maantana intaas oo qof oo miinadaasi ka shaqaynaya oo ka hawlgelaya oo si qurux badan wada ayaa maanta warbaahinta ka hawlgala dadkaasi quruxda badan ee shaqadaasi quruxda badan ee qalabkooda leeyahay ayaa waxaa nasiib darro noqotay in wasaaradii ay ku magacaabanayeen ee warfaafinta ee qaranka mas-uulka uga ahayd inay ayagii u aragta cadow tan iyo maalinta ka soo biiray warbaahinta wasaaradda warfaafinta waxay warbaahinta madaxa bannaan u aragtaa cadow waxay warbaahinta madaxa bannaan u aragtaa kuwa dalka dumiye waxay warbaahinta madaxa bannaan u aragtaa kuwa qaranka dhiba waxay warbaahinta madaxa bannaan u aragtaa kuwa wax walba waddanka ka dhacba ayagu mas-uuliyadooda ay saaran tahay taasi markay wasaaraddii aad ku afirsanaysay ee kaa aaminsan tahay waxaa kugu yaraanaysaa inaad kalsooni badan aad qabto haddana saasoo ay tahay warbaahinta madaxa bannaan markasta waa kuwa jecel waa kuwa aan caayay waa kuwa naflagaaday waa kuwa aan in yara ha noqotee duruuf iyo xaalad kala duwan midnaba aan iga soo gaarin marka intaasoo eeday iyo cadowey ay socoto warbaahinta madaxa bannaan howlaha iyo warbaahinta madaxa bannaan ay wasaaradda warfaafinta door kuma laha wariyaha xusanaya duruuftiisa ma oga mid xidhan duruuftiisa ma oga keliya waxaan xasuusanaa wasaaradda warfaafinta ee aan aragnaa waa maalinta institution la xidhayo waa maalinta wariye la xidhayo waa maalinta cid kasta laga noqonayo waa maalinta ugu yaraan cid walba wariyo madax bannaan la dhibayo cid kaba maanta oo la karta waxay naga soo gaadhay siminaar waxay naga soo gaadhay waxay naga soo gaadhay ama ugu yaraan wax horumar warbaahinta ka hadlaya ma jirto keliya waa laba jeer aan xasuusano waxaa la wasaaradda warfaafinta hebel xidhaysa wasaaradda warfaafinta hebel sida kala noqotay wasaaradda warfaafinta hebel eedanaysa saas oo haddana inta inoo qabnaa wax dhib iyo culays midna waa noqoyn mudana wasiir iyo guud ahaan wasaaradda haddii shaqadaada ku ekaatay xaydaarka guud ee wasaaradda warfaafinta ma soo dhaafto deyrkeeda ma soo dhaafto wax saarnoqon qaar mara warbaahinta madaxa bannaan wax bay dhaba lahaa waxay ku kooban tahay tv-ga qaranka raadiyo hargeysa iyo dawr wax kale oo ay mas-uuliyadoo haysaa maanta mama jirta wasaaradda warfaafinta marka loo eego wasaaradaha kale institutionada hoos yimaada toos bay u gaadhaan ama warshaqan hala yeelato ama horumar hala yeelato ama siminaar ha soo saarto ama ugu yaraan loo wada shaqeeyaan si wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta madaxa bannaan wax wada shaqeynaya wax walba ka dhexeeyaan midooda jirto mudana wasiir guddigaad loo soo saartayna waa shaqidana oo dastuurkiina ma ogola ka qabanina ma ogola kii horna ma ogola ruqsadaha dalbanaysaana ma ogola xeerkeedii lamar 7 ee 2004 haddii labadaasba aanay ogolay adigu xeer baa mas-uul ku tahay xeer u agaasimo ku yahay xeer u madaxweyne ku yahay dastuurkaana wada faraya wixii dastuurkaasi loo jireeyey aynu ku wada qaban haddii intaasi aad soo dhaaftay dee ma filayo malaha warbaahinta wax wanaagsan inaad kala kulmaysee balaa intaa dib isu yeelo marloo balligu dib u eega oo dib u falanqeeya